madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka soo gaaray gobolka Gabiley. madaxweynaha subaxnimadii saaka ka soo jarmaaday magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa qaar ka mid ah cuqaasha gobolka Gabiley, maamulka gobolka iyo ka degmada shacbi weynaha gobolka Gabiley ay kaga hortageen xuduudda u dhaxaysa labada gobol ee Gabiley iyo Awdal, halkaas oo ay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha. intaas kadib waxa madaxweynuhu soo kacay Gabiley isagoo soo maray deegaanka kala baydh, halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay. markii uu soo gaaray Gabiley ayaa dadweynaha magaalada Gabiley oo joogay afafka laga soo galo magaaladaasi ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan, boorar ay ku sawiran yihiin sawirka madaxweynaha iyo halkudhigyo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo socod luga ku soo dhex maray wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Gabiley isagoo loo soo galbiyay guriga martida ee magaalada Gabiley. halkaasna waxa warbaahinta kula hadlay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame oo ka warbixiyay ujeedada safarkooda, waxaana uu yiri Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo labadii maalmood ugu dambeeyay safarkiisii ugu horeeyay ee daafta ku mareeyay gobolada galbeedka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Gabiley ee magaalada Gabiley. waxaana madaxweynaha duleedka galbeed ee magaalada Gabiley iyo xadka gobolka Gabiley ku soo dhaweeyay dadweynaha iyo shucuubta gobolka Gabiley, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adaha laamaha dawladda, kuwaas oo madaxweynaha ku qaabilayay calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan, isla markaasina u muujinayay dareenka wadaninimo ay u hayaan xukuumadooda iyo madaxweynahooda. madaxweynuhuna isagoo la wadaagaya dareenka dadweynihii ku soo dhaweynaya farxadda iyo reereynta wuxuu magaalada Gabiley gudaheeda kula lugeeyay shacabkii kala duwanaa ee muujadaha ahaa ee u taagnaa soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland. waqtiga uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliland gobolka Gabiley wuxuu la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada, hay'adaha laamaha dawladda, isla markaasina wuxuu xaqiijinayaa hawlaha horumarineed ee xukuumaddu ay ka wado guud ahaan gobolka Gabiley. madaxweynaha Soomaaliland safarkiisan uu ka bilaabay daafta ay gobolada galbeedka ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan gobolada galbeedka Soomaaliland, taasina waxay muujinaysay soo dhaweyntii reereyntii tan iyo intii uu safarka daafta marayay madaxweynuhu tuulo ilaa geedgeed ay shacabka reer Soomaaliland ee gobolada galbeedku ay ku qaabilayeen. ujeedada safarkan madaxweynaha ee gobolada galbeedku waxay daaran tahay inuu madaxweynuhu u kurgalo xaaladaha ka jira gobolada galbeedka, isla markaana uu xaqiijiyo hanaanka geediga horumarka Soomaaliland, iyadoo gobolada galbeedka Soomaaliland uu ka socdaan mashaariic waaweyn oo horumarineed, kuwaas oo siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tan iyo intii talada dalka la wareegay uu ku iba furay iskaashi isku filaansho iyo wax soo saar buuxa, iyadoo mashruucii ugu weynaa wax soo saarka beeraha oo la rajaynayo inuu qarankan u gaarsiiyo adeeg cunto oo ku filan awgeed ay ka socdaan gobolada galbeedka. madaxweynuhuna wuxuu ku gelayaa oo xaqiijinaya horumarka guud ahaan. waxaan u mahad celinaynaa shacabweynaha gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sida kale laabta ay soo dhaweeyeen madaxweynahooda, maamulada gobolada Awdal iyo Gabiley ee gobolada iyo degmooyinkaba. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum. si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tan iyo intii talada dalka qabtay uu ku soo gaadho magaalada Gabiley. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin, Dalsan TV, gobolka Gabiley.